waxaa gebi ahaanba gudaha dalka Soomaaliya maalmihii u dambeysay ka bilowday kacdoonno kala duwan kuwaasoo lagaga hortagayo kooxaha Al-Shabaab ee ka aasaasan gudaha dalka Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Ra'iisul Wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre ayaa goobo fagaaro kala duwan kaga dhawaaqay in dagaal toos ah lala gali doono kooxda Al-Shabaab. Shacabka qaybihiisa kala duwan oo ugu horeeyaan kooxo isku magacaabay Macuusley ayaa maalmihii u dambeeyay kacdoonno ka waday gobolada kala ah Hiiraan, Galguduud iyo sidoo kale Galmudug. Goobo ay Al-Shabaab haysteen in ka badan 15 sano ayay gacanta ku dhigeen shacabka iyo ciidanka oo isgarabsanaya. Kooxahan Al-Shabaab oo iyaguna sidoo kale maalmihii u dambeeyay ka waday hanjabaado kala duwan baraha bulshada ayaa sheegay inay dhammaan ka tallaabo qaadi doonaan qabaa'ilka dhawaan aasaasay kuwaasoo iyaga ka hor yimaaday. In ka badan 15 sano goobo ay haysteen kooxaha Al-Shabaab oo ka mid ah gobolka Hiiraan ayay shacabka iyo ciidanka gaarka ah ee dowladda Soomaaliya oo isgarabsanaya gacanta ku dhigeen. Waxaa maanta jiida hore ee goobaha la qabsaday gaadhay taliyaha guud ee ciidanka Soomaaliya Taliya iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir, kuwaasoo ay ku dhiirigeliyeen ciidanka iyo shacabka dagaalka furimaha hore kaga jira inay sii wadaan dagaalka laba jibaaraan, dowladuna wax walba ay la garab taagan tahay. Waa markii koobaad ee dhammaan shacabka Soomaaliyeed si guud u gobollo kala duwan ugu guntaday sidii uga hortagi lahaa kooxda Al-Shabaab oo muddo dheer Soomaaliya ka talinaysay. Kacdoonka shacabka ayaa ku soo aaday xilli madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh uu ku gootiyay inuu ka hortagi doono kooxaha Al-Shabaab dagaalna uu si guud ula gali doono. Lama garan doono halka ay ku soo gabagaboobi doonaan dagaaladan iyo sidoo kale kacdoonnada shacabka kuwaasoo maalmihii ugu dambeysay si xawliha uga socday dhammaan gobolada Soomaaliya intooda fara badan. Maalmihii u dambeysay shacabka iyo ciidanka isgarabsanaya ayaa guulo ka soo hoyay dhammaan goobihii ay isku qabteen kooxda Al-Shabaab oo muddo dheer ka tirinaysay gudaha dalka Soomaaliya. Shacabka intiisa fara badan ayaa u guntaday qaabkay uga hortagi lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Ceelasha iyo sidoo kale baraagaha iyo tuulooyinka meelo ka mid ah ay kooxda Al-Shabaab dab qabadsiisay, ceelashana way aaseen uu shacabku ka cabeeyay kadib markii ay isku dayeen kooxaha Al-Shabaab inay falalkan iyo kuwo ka xunxun ay sii caadaystaan. ayaa shacabka intiisa fara badan ay u guntadeen qaabkay uga hortagi lahaayeen. Dhawaanay gobolka Hiiraan qaybo ka mid ah ay ku xasuuqeen caruur yaryar ah, sidoo kale ay ku gubeen gaadiidkii ay wateen. Wixii ka dambeeyay shacabka ayaa dhammaan u guntaday qaabkay uga hortagi lahaayeen, iyadoo kooxda Macuusleyda ay ugu horeyso inay ka hortagto dhammaan argagixisooyinka qaababkooda kala duwan iyo sida ay uga howlgalayaan dhammaan guud ahaan dalka Soomaaliya. Kacdoonka shacabka ayaa markii ugu horeysay noqday mid isku xidhan dhammaan gobolada intooda fara badanna ka hirgalay. Xaaladda ayaa faraha ka baxday maalmihii u dambeysay, taasoo inta badan shacabku guulaha ay iyagu mar walba ku gacan sareeyaan, goobo cusubna ay ka qabsanayaan kooxaha Al-Shabaab kuwaasoo muddo dheer Al-Shabaab ay ka talinaysay.